waa tahay daawadayaal soo dhawaada halkani waa koonfurta bariishka weyn ee magaalada Hargeysa oo dib ay uga bilowdeen shaqadii bacalayaashii magaalada Hargeysa ee suuqa Waaheen ee gubtay sida arkaysana daawadayaal halkan waxa uu isku bedelay suuq iyadoo markii hore aanay wax ganacsiga aanay ka furnayn waana suuq weynaa ee Waaheen bacalayaashii ayaana halkan dib shaqadoodii uga bilaabay kadib markii uu gubtay suuqoodii sida arkaysaana halkan meherado kala duwan ayaa ka furan oo ay ku ganacsanayaan dadkii ganacsatada ahaa ee ganacsiyadoodii ku waayay suuqa weyn ee Waaheen halka waxa iga muuqda hooyooyinkii iyagu xabuubta iibin jiray balse waxaan isku dayi doonaa inaan waraysto qaar ka mid ah dadka iyagu ku ganacsanaya suuqa qaybta bacadlaha oo iyagu suuq aad u weyn halkan dib uga yaqleelay si ay dadka uga iibiyaan dharka ciida maalmaha lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan waxaan isku dayi doonaa inaan dadka insha Allah midmid u waraysto inta aan halkan ku guda jiro soo dhawaada daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa waa suuqii ka soo barakacay Waaheen suuqii weynaa ee Waaheen sida arkaysaana bacalayaashii suuqa halkan ayay dib shaqadooda uga bilaabeen koonfurta bariishka weyn ee magaalada Hargeysa waxaana muuqata in dadka reer Hargeysa ay yihiin kuwa hal adag oo aan isdhiibin isla markiina dib u bilaabay sida arkaysaan halkii kabihii ayaa ka muuqda oo waa qaybtii kabaha ee suuqii Waaheen balse hadda halkani waa koonfurta bariishka weyn ee magaalada Hargeysa caruurtii reer kabahoodii iyo kabii kala duwan halkan ayaa yaala sida arkaysaan waxaan isku dayi doonaa insha Allah in aan waraysi ka qaadno dadyo kala duwan ee halkan ku ganacsanaya ee ka soo barakacay suuqii weynaa ee Waaheen ee gubtay hadii Ilaahay raahdo daawadayaal halkan haddii aan idin tilmaamo waxa sidoo kale loo soo raray istaanadii basaska oo aad arkaysaan in dadkii halkan ay basaska ka raacayaan marka ay yimaadaan suuqa waana agagaarka bariishka weynaa ee magaalada Hargeysa waxa xusid mudan in bariishka agtiisa sidoo kale ay hooyooyinkii xabuubta iyo qudaarta iibin jiray ayaga laftarkoodu halkaasi ku ganacsanayaan sidaad muuqatana daawadayaal dib ayay meheradahoodii u camireen dadkii bacalayaasha ahaa ee iyagu ay ka burburtay hantidoodii marka insha Allah ku soo dhawaada waraysiyo kooban oo aan la yeelan doono dadka halkan iyagu ku ganacsanaya meheradihii dooxa soo degay dhinaca bariishka koonfurta magaalada Hargeysa ayaan hadda joognaa mid kamid ah meheradan saad arkaysaan lagu iibiyo daruucda shiidka ee dumarku xidhaan wiilkan dhalinyarada ayaa jooga walaal magaca Cabdiraxmaan Muulid walaal wahagaag waxaad kamid tahay meheradihii ku gubtay Soomaha suuqa Waaheen hadiyad ha waa tahay halkan goorma soo degteen hadda sidee dadku wax idin kaybsadaan wallahi alxamdulillah horta ومالنتي ugu horeysay aan furnay in suuqna alxamdulillah wallahi aadiyad waa sidii horumaad islaan way alaabtan aad hadda isticmaalaysaan ee aad halkan soo dhigteen daruucdani ma kuwii gubtay ay idin ka soo hadheen mise waxa weeye alaab cusub aad keenteen may in wax aan wali doonay ma jiro laakiin waa wixii gubtay ka soo hadhay wahagaag maxaad fariina u diraysaan dawladda iyo gaar ahaan dawladda hoose iyadu ku hawlan dhismaha suuqii Waaheen ee gubtay waxaan u direynaa dawladda waxaan leenahay unde waad aragtaa dadkaagii tabaalo way jirtaa halla iska warhayunte aad maasatay magacaaga igu celi Cabdiraxmaan Muulid aad maas Cabdiraxmaan hayla hagaag daawadayaal waxaan joognaa suuqa cusub ee laga dhisay bariishka magaalada Hargeysa gaar ahaan qaybtiisa koonfureed oo ah waliba halkan ay soo degeen dadkii ka gubteen suuqii Waaheen oo iyagu halkan ganacsiyo cusub dib uga bilaabay وهجاج ولا المجاعة ولا المجاعة يروح ناصر أحمد يوسف وهجاج ناصر قرمات مهرد دي بفرتين وسوقي Waaheen جبتي بنا فهم يالك الله صار رأي ولا لوارن ويشرتها تعصي بس يوضع سنة وين نقول عضي إن هساعة هذا مركي إن هوش عصي نقول تمي كبعد مالها هذا لحشة لحي كدم بيبان هوشن بروني إن مركز ده الحمد لله وأنا جاي مكان كاسن كوكان أحسن إنها سوقنا ده واحد بدن كمفوقين الحمد لله كاسن شو dadka hadaad u tilmaanto waa halkee goobtani waxa weeyaan dalxiis xaqiisa total ka xigtay weeyaan dhinaca koonfureed bariishka waa hagaag marka dadka waxaan leenahay wixii macmiishaha ee suuqa day wax ka iibsan jiray halkaas noogu soo hagaag insha Allah waa bacadlihii oo dhan mise waa in yar oo kamid ah waxoogaa intii ugu badnayd weeyaan bacadlihii marka inta ugu badan ee isku xidhiidhsan degtay weeyaan halka aad bad maastay walaal adiga muddo wagaag daawadayaal saad arkaysaan waa dharkii ciida loogu talagalay amaba bacadlihii Hargeysa oo halkan si dib looga furay waana suuqii Waaheen ee ku gubtay magaalada Hargeysa oo wali aan dhismihiisa la bilaabin balse dawladda hoose Hargeysa ay sheegtay inay ka howlgalayso sidii ay dib ugu bilaabi lahayd suuqaasi oo dib ugu dhisi lahayd magacaaga ku bilow bal ka waran suuqii gubtay Waaheen ganacsadii ka soo barakacday baad ka mid tahay halkan hadda aad timid goorma ayaa timid se maxaad hadda halkan ku haysaa alaabta kaaga soo hadhay suuqa mise waa alaab cusub magacayga waxa la yiraahdaa Amaal Maxamed Ismaaciil waxaan
waxaan haystay meherad shiida meheradiina wax iga baxay ma jirto marka meheradana marka aan sameeyay waa meherad marka cusub oo aan sameeynay xoolihiina halkaas inaga baxay way maxaad fariina dawladii hoose Hargeysa oo iyadu ku howlan inay suuqii dib u dhistaa u diraysaa iyo guud ahaanba shacabkii markii hore waxay ka iibsan jireen waxaan u dirayaa in meeshii loo hagaajiyo oo la nadaamiyo la qurxiyo anaguna halkii aan walba joog jirnaan ku ganacsano hadii la ka dhigo meeshina la nadaamiyo wadoon loo sameeyo la habeeyo macaamiishaadii halkan seebad ugu tilmaami kartaa waxay ku taallaa koonfurta bridge-ka magaalada Hargeysa bal tilmaan way adagtay macaamiisha halka dhinac walba laga iman jiray hadana imika way adagtay macaamiisha inay halkan yimaadaan oo meesha yara fog way wahagaag aad iyo aad bad mahadsantahay daawadayaal taasina waxay ahayd mid ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ka soo barakacay suuqii Waaheen ee gubtay oo halkan iyaduna dib uga bilowday meherad cusub oo ah bridge-ka magaalada Hargeysa koonfurtiisa isla markaana lagu biyo dharka dumarka iyo ragaba wahagaag daawadayaal weli qaybtii dharka ee suuqa Waaheen ee bacadlaha dadka ka soo barakacay ganacsatada yaryar ay ka soo barakacay baan joognaa magacaaga ku bilow walaal bal ka waran goorma ayaa dib u furtay ganacsigaagii walaal magacaygu waa Mukhtaar Ismaan Qeyrre ganacsiga waxaan furnay marka week baan halka furnayn bayla 5 cisho ilaa week gaarisa waxaan lahay bacadli halka ka soo qaxay dabku ka dhashay halkan aan degnay meheradi waa kuwan aagan oo dhan wada bacadli wada furan yahay bacadli waa halkan uu soo guuray waayahay fariin caynkeeyad u direysaan macaamiishii dharkii iida dharkan isma dhar cusub markaad keenteen ma mise dabkiiba idinka badbaadeen macaamiishii iyo dadkii dadweynihii reer Soomaaliland suuqa wax ka iibsan jiray waxaan leenahay bacadli halkan uu soo guuray dharku waxna wax nooga badbaaday weeyaan waxna wax cusub waa dhar cusub bay badankiisu badan yihiin way suuqii Waaheen arkaysan oo arkaysan dharkii ciidii aan keenay waana bacadlayaasha suuqa Waaheen way dawladda hoose iyo tadhaxaba waxay sheegayaan inay suuqa dib u dhisayaan maxaad fariin u diraysaa waxaan leeyahay way ku mahadsan yahay haday dhisayaan nagu dhaqsadaan ma leh aad bad mahadsantahay waa tahay walaal magacaaga ku bilow waxaanu joognaa ganacsigan cusub oo aad ka furtay koonfurta bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa muddo intee leg ayaad halkan imika ku ganacsanaysay maadaama aad ka mid tahay dadkii dabku dhibaatada soo gaarsiiyay suuqa Waaheen muddo magaalka waxaan ku ganacsanay 5 cisho way yo 3 cisho iyadana aan dhisanay alxamdulillaah rabbil caalamiin ana waxaan ka mid ahay dadkii dabku soo barakiciyay laakiin ilaahay fadligiisa alaabtii way nooga badbaaday dabka dadka alaabtii u badbaaday baa ka mid ah alaabtii soo raray positionkii mooye alaabtii ayna ka gubanin marka alaabtii hore iyo tii cusbeed bartaan ku furnay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin magaaladu maxaa wayna soo dhaweysay si fiican weeye suuqii lamid baan haynaa waayahay aad baad mahadsantahay dadku waxay leeyihiin mar haddii suuqii Waaheen gubtay alaabtii yareeda taalay aad bay u sii qaaliyeen bacadlayaashii oo waxa weeye dadkii way ku sii qaaliyeen iyadoo marka horeba noloshu qaali iska ahayd arrintaas oo kale maxaa ka jira haba yaraatay waxaan qaali gareynaa ma jirto markii horena dadka sixirka kulul maan hayn imikana maadaama sixir baran jiro wax kasta jiro anagu qiimo hoos baan dhigaynaaba marka macaamiishii iyo customerkii waxaan u sheegayaa meheradii waxay degan tahay bridge-ka afkiisa hore dalxiis in yar soo dhaafa sida aad baad mahadsantahay wahagaag daawadayaal saad arkaysaana dadkii dharkii ciidii ay iibsanayaan oo waxa weeye suuqa cusub ee barakacayaashii suuqa Waaheen carruurtii yareed ayaana dharkii loo iibinayaa waana xilli Ramadaan oo loo diyaar garoobayo ciidii barakaysneed ee ciidda bisha Ramadaan waa tahay daawadayaal weli bacadlayaasha ayaanu joognaa ninkan odayga ah baan halkan ugu yimid magacaadir magacayga Mukhtaar Cabdullaahi wahagaag Mukhtaar muddo intee lag baad halkan deganaydeen maadaama uu gubtay suuqii Waaheen ee aad marka hore ku ganacsanayseen waxaan deganay marka muddo 7 way halkan baan degnay markii magaalada joognay ma kana naga kaynta xirxaadanay way wixii ku balay alxamdulillah way gaad baan wanaagsanay maxaa fariin u diraysaa dawladda maadaama suuqiin uu gubtay una baahantiin meeshiin iyo kale oo dad badan ay iskugu iman jireen dawladda waxaan u dirayaa maadaama suuqa ay gubtay meeshu waa la xalxaliyaa laakiin dadkan meel la dejiyo wanaagsan oo santara ayaan ka codsanaa dawladda anagu hasan doona hadda sidee dadku waxay ka iibsadaan maadaama xilli ciida la soo galay bishii Ramadaan lagu guda jiro dawladda jahwarar baa ku dhaco meel ugu hagan dadka garmaayaan marka santar baa suuqa la tagi jiray
dadka suuqa kale tagi jireen laakiin maka dadku wajaha wareereen bacad loo gubtay halkay way meersanayaan intee marka wax cidi weli dadku aad buu yiri suuqan hataa dadka u tilmaanto wahalkii halkani halkan xawayaan dalxiis waa bariishka dhinaciisa koonfureed way halkan fooqayna geela ka soo horjeedkiisa weeyaan aad baad maasatahay waa yala mudan magacaaga walaal ku bilow magacaaga walaal wax weey faad xirskaahin anu waxaan ahay mas'uulka labaad meerada waxaan ahay dadkii halkan suuqu ka gubtay isla markaana halkan ilaa 7 baan naala samad garan halkanna inta suuqa la dhisayo ayuunan ku meel gaadhnahay marka dawladana waxaan leenahay inaynu meelo wanaagsan ay dadku ganacsadaan imanka intayadan halkan dhowr qof oo bacadlaaba yimi laakiin dadka badankiisu dooxa ilaa ayuu waray marka dawladda waxaan leenahay imanka maadaama iska tahay xilligii roobaadka marka dawladda waxaan ku codsanaa inay dadka meelo wanaagsan ay sameeyaan dadku waa dadkeenii xilli roobaadiyaa lagu socdaa xilli roobaadiyaa nagu soo socdaa idinku ganacsigiinii hore ee suuqa waaheen mid ka wada gubtay mise waa mid idin badbaaday kan adigu waa inta badan waan ka badbaadinay anagu dadkii koonaani samad garan marka wixii aan wax kala yaacnay anagu inta koonaaneen waxna way naga gubtay dadkii macaamiisheedin ahaa maxaad fariin u diraysaa maadaama dee dadkii ay aad ugu jahawareereen suuqii oo ay yidhaahdeen suuqu wuu gubtay caruurtii laftarkoodii yaryaraa warwar baa gal dharkii iidoo kale maxaad fariin u diraysaa marka dadkii macaamiisha leeyahay waxaan leenahay hadda wax walba waa qadarka ilaahay waan rumaysanay wax walba waa qadar dadkii macaamiishaana waxaan leenahay suuqii waxaanu ka furnay halkan dalxiis sukadeeda oo xalaaliyo wixii macaamiilana garaya meeraduna waa cadcad la isu baristeen waa meerada mulkiileedu leeyahay Axmed Muuse Jaamac aad baad mahadsantahay waa tahay daawadayaal qaybtii duruucda shiidka ee suuqa waaheen ayaan hadda joognaa ninkan odayga oo isagu ganacsigan hor fadhiya walaal magaca maxamed muuse cali maxamed carab waayahay maxamed carab bal ka waran goorma ayaad shaqada dib u bilowdeen maadaama suuqii weynaa gubtay waxaanu dib u diray muddo 3 shaaban imika shaqeynayna way waxaan nolosha ku ridaynaa dad badan waxay leeyihiin Hargeysa ismay dhiibin oo way wata dirtaba soo kabatay maxaad fariin oo laab qaboojina dadka u diraysan maadaama dadkii ku hanti beelaad ahaydeen markii hore alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay waa mahadle markii hore ilaahay baan nasiiyay makan ilaahay baan hoos joognay waa nimco baan leenahay dadka niyada adkaysta way oo dumarka waliba dharkii dumarka aad ugu iibinaysaa waxa dharkii ciid ee salaada lagu tukanayay waan diyaar baan leenahay aad baad maasatay walaal وهجاج داوديال صدر كسانا وبرتمها سوقي عصباء واهن وكيالا كونفورتا بريشكا وين مقالة هرقيسة هل كان waxaa lagu iibinayaa dharkii kala duwanaa ragga iyo waliba dumarka waxaan doonayaa inaan qaybo kamid ah wareysto dadka halkan iyagu ku ganacsanay walaal magaca walaal magacaygu guuleed Musaali way guuleed soo dhow walaal wandhow Khalid Fodari oo soo dhaweynayna maadaama na soo booqtay waan ku mahadnaqaynaa inta Ilaahay ka soo kubacday shukrilah ku mahadnaqaynaa waxaan nahay dadkii kaga gubteen suuqa waaheen alxamdulillah rabbil caalamiin ganacsigii dib aan u sii bilownay waxa halkaas nala joogto waa garanaysaa waa bariishka weyn shadiisa hukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqi lahayn inay dadkan cadceed degan walaal hooyooyinka midiina ee muuska iibinaya ee xabowta iibinayeen qorshe loo sameeyo sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in basaskan ayna dhaafin bariishka oo ayagana meel loo sameeyo wad mahadsantahay Khalid Fodari aad iyo aad baan mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal sidaad arkaysaana ganacsiyadani waa kuwo hadda degdeg loo sameeyay si dadku ay dharka ciidda halkan uga iibsadaan waxaana muuqanaysa in Hargeysa ay dadkeedu u muuqdaan kuwo hal adag oo iyagu ka soo kabanaya markiiba dhibaatadii gaadhay ee aadka u xooganeed ee dadku uu ku saameeyay suuqii weynaa ee waaheen وهذا الدولة أنت سيان كسو كوبينا مقال كاسيان كو إيجني بعض لياشي سوق وينا واهن أو يجودي بقى بلعبة شقدودي كونفورتا بريشكا مقالة ده حكيسة